waa maalin ka duwan maalmihii aanu soo joognay runtii waa maalin dareen gaar leh waxaynu joognaa iskuulkii Cabdo Ayer oo iskuulkii markaa baahiyaha gaarka ahaa ee magaalada Burco waxaynu maanta halkan u joognaa inaynu xadhiga ka jarno mashruuc dayactir iyo dhismayaal cusub oo ay ku dartay shirkadda Ganel Energy iyo CBC oo laga maalgeliyay community responsibility project mashruuca markaa hoos imanaya ceelka shidaalka toosan oo community-ga wax lagu celiyo ama bulshada wax lagu celiyo wasaaraduna wasaaradda tamarta iyo macdantuna ay mas'uuliyadeeda leedahay waxaan aad ugu mahad celinaynaa labada shirkadood inay community-ga wax ku celiyaan runtii wax ku celintaasi laga dayactiray dhismayaasha cusubna lagu daray iskuulka baahiyaha gaarka ee Burco ee Cabdo Ayer waxay ka mid tahay markaas in bulshada wax lagu celiyo la sii maal gashado bulshada reer Burcana wax ka qabashada markaasi marka shidaalka la soo saarayo ay dareen gaar ah u samayso in shirkaduhu ay wax ku soo celinayaan dadkoogii taas waxa weeye waa mudnaan gaar ah waxa sidoo kale aad ugu mahad celinaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada runtii oo isaguna hormood ka ah iyo gudoomiyaha guddiga qaraasiyada oo runtii in ay hawshaasi qabsoonto iyaguna hawl badan soo galiyay iyagana aad baa ugu mahadnaqaynaa waqtigu waa kooban yahay waxaanu leenahay dadka iyo maamulka iskuulka iyo ardayda iyo waalidiintu inay ka faa'iideystaan waxqabadka maanta runtiina ma aha mid halka ku joogsanaya waa mid aynu sii wadayno maalinba intii wax laga qaban karayo intanuun ma ahina waxa weeye dhammaan gobolka iyo meelaha ay ka shaqeeyaan shirkadaha CBC iyo Ganel Energy iyo wasaaradda tamarta iyo macdanta oo isku duuban oo ka mid yihiin soolarradii dhismaha iskuulada iyo meelo kale oo fara badan aanu wax ka qabanayno wasaaraddu intaa ma aha waxaanu mar walba aanu kala shaqeynaa wasaaradaha kale iskuulada meelaha caafimaadka iyo dhammaan xarumaha tamarta oo dhan baanu kala shaqeynaa xarumihii hadda gobolka oo dhan waxa ka socda markaasi in koronto la geliyo iskuulada iyo MCH-yada waxaan leeyahay hadalku waa kooban yahay intaas aan ku soo gabagabeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.